Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ma jirtaa mar aad dembi samaysay kadib qalbigaaga uu culays dareemay, murugo, qoomamo iyo dareen ah maxaan sameeyey, maxaan dembigan u galay? Dad badan waxay u maleeyaan dareenkaas inuu yahay daciifnimo, laakiin maanta waxaan kuu sheegayaa haddii qalbigaagu weli ka murugoodo dembiga, waa bishaaro, ma ahan musiibo. Culimadu waxay yiraahdaan qalbigu labo ayuu noqon karaa. Qalbi nool marka uu dembi sameeyo wuu xanuunsadaa, wuu ka murugoodaa, wuu ka qoomameeyaa. Qalbi dhintay dembi ayuu sameeyaa, waxbana ma dareemo, wuxuuna u arkaa wax iska caadi ah inuu dembigaas yahay. Qalbigaasaana khatar ah. Ka fikir haddii qof uu dembi sameeyo uu ku qoslo kadib uu sii wato sidii wax inuusan dhicin oo kale. Taasi waa wax laga baqo, waana midka dhibaatada noo keenayo. Taasi waa wax laga baqo. Laakiin haddii aad dareento culays oo aad niyadaada ka tiraahdo Allahayow iga cafi, taasi waa iimaan gudahaaga ku jira. Qalbiga noolna waa midka iimaan ku sii jira weli. Mar allaale markaa dembi oo naga dhaco inaynu ka murugoono, ka walwalno, waxa keenaya waa iimaanka yar ee qalbigeena ku jira. Murugada dembiga ma ahan shil, waa raxmo Allah subxaanahu wa tacaala inaanu ka murugoono dembigaas. Maxaa yeelay qalbiga qaar ayaa jira oonan ka murugoonin dembiga ay sameynayaan, una arkaan wax caadi ah. Sababtoo ah qalbiga muslimka ah wuxuu kuma nasto dembiga. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay wanaagga waa waxa qalbiga dejiyo, dembiguna waa waxa qalbiga gilgila. Marka qalbigaaga gilgilo, waa digniin, waa jecel Allah subxaanahu wa tacaala kuu soo diray oo ku leeyahay kasoo laabo dembiga kan. Shaydaanka wuxuu rabaa laba talaabo: inaan dembiga sameyno kadibna aan kusii socono dembigaas oo aanan ka walwalin, ka murugoonin, ka toobad keenin ayuu shaydaan rabaa. Talaabada labaadna uu rabo inaad naxariista Allah subxaanahu wa tacaala inaad ka quusatid oo dembi dhaafkiisii aad ka quusatid oo shaydaan oo noogaga sheekeeyo oo na yiraahdo dembigaas lagaa cafi maayo, qof xun baa tahay, munaafiqaa tahay, qof dadka hortooda markuu joogo oo wanaag sameeya ayaa tahay, markii kaligaa noqotidna dembiga ayaad gashaa, ilaah kuma cafinayo. Waana waxyaalaha uu shaydaan noogu soo gamban karo weeyaan. Laakiin runta ayaa ah shaydaan wuxuu ku farxaa inaad dembiga ku dhacdid, adigana waxaad kaga murgin kartaa markaas dembiga ku dhacdid toobad. Shaydaanka hadduu kugu majaxaabiyo inuu dembiga kugu rido oo ku halaajiyo, adna waxaad gubtay oo aad dhahday marka aad toobad keentid. Shaydaanka wuu ka murugooda, wuu ka naxa markaad toobad keentid, adna toobada ku majaxaabi. Allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu noogu leeyahay ilaah ha ka quusanina naxariisteeda. Ilaah wuxuu jecel yahay kuwa dembi sameeya oo haddana toobad keena oo mar kale soo noqda oo dembiga ka soo laabta. Kuwaas ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay. Ma aha kuwa aan weligood khaldamin, waa kuwa markay dhacaan soo istaaga oo ka soo laabta dembigooda. Waxaa laga yaabaa dembiga aad ka murugoonaysa maanta in uu sabab u noqdo inaad salaad fiican la timaadid, inaad duco ilaah barisid aad la timaadid, in qalbi cusub aad yeelatid. Waxyaalaha aan iimaankeenan inaan siyaadino ay muhiim inoogu tahay waxay tahay mar walbo dembiga naga dhaco dhibic yar ayaa qalbigeena ku dhacda, laakiin markaynu ka toobad keenno dhibicda sirta oo madowda way ka tirmaysaa. Laakiin haddaan kusii socono dembigaas, qalbiga ayaa sii madoowaanayo. Waana waxyaalaha uu shaydaanka rabo inuu nagu rido. Mar hadduu qalbiga madoowaado waxay ka dhigan tahay inaadan wax qabsan karin oo cibaadaadkii ay culays kugu noqonayaan, wanaaggii aad u arkaysid wax culays ah. Marka waxyaalahaas oo kale inaanu ka digtoonaano ayaa noo muhiimsan. Marka aan dembiga aan ku dhacno, waxaa 3 talaabo samee. Marka aad dembiga gashid 3 talaabo samee. 1. dib ha u dhigin toobada. Ku degdeg toobada inaad la timaadid, dib ha u dhigin. Isla markii ilaah subxaanahu wa tacaala u laabo, dembi dhaaf weydiiso, wixii aad gashay ka qoomamay, ka ooy, ka murugow, inaadan dib dambe u sameyneynin. Go'aanso, ilaah subxaanahu wa tacaala u soo laabo. 2. ku xir dembiga wanaag. Mar walbo dembi kaa dhaco oo qaladka aad gashid, kadibkeeda waxaad sameeydaa wanaag. Wanaagaasi wuxuu baabi'in karaa dembigii aad gashay. Salaad tuko, sadaqo baxso, quraan akhri, dad u axsaan fal, wadada haddaad wax qashin ku aragtid iyo waxyaalaha oo dadka dhibaataynayo ka qaad. Mar walba ku dadaal inaad wanaag ku bedeshid dembiga aad gashay, wanaag ka dambeysii. 3. ha quusan. Naxariista Allah subxaanahu wa tacaala ha ka quusan. Shaydaanka wuxuu rabaa oo jecel yahay inaad ka quusatid naxariista Ilaahay. Mar walba dembiga aad galaysid ogsoonow ilaah naxariistiis ayaa ka weyn. Haddaad mar u soo laabatidna wixii hore dhan ilaah subxaanahu wa tacaala wuu kaa cafinayaa, wuu kaa aqbalayaa toobadii. Dadka soo laabtana Allah subxaanahu wa tacaala
aad ayuu u jecel yahay addoommadiisa oo qaladka ku dhacay kana soo laabtay. Mar hadduu qalbigeenna ka murugoonayo dembiyada iyo macaasida markii aan ku dhacno, waa calaamad wanaagsan. Waxaan u baahannahay inaan iimaankeena sii xoojino si aanan mar dambe shaydaan iyo waddadiisa aanan ugu halaagsamin. Shaydaan mar walba wuxuu isku dayayaa inuu dembiga nagu majxaabiyo, na gubo, na halaajiyo. Sidaas ayuu rabaa. Annagana waxaynu halaajinaynaa oo aan gubaynaa marka aan toobad la nimaadno. Bini'aadan aan ahayn, dembi waa naga dhacayaa, laakiinse waxa u wanaagsan dadka dembiga sameeyo, dadka soo laabta. Haddii aad maanta maqlayso codkan oo aad qalbigaaga ku ogtahay in aad dembi ka murugoonayso, murugadaasi waa bishaaro. Waxay ka dhigan tahay qalbigaaga inuu weli nool yahay. Waxay ka dhigan tahay Allah subxaanahu wa tacaala weli wuu ku doonayaa. Soo noqo, toobad la imaaw, noloshaada ayay bedeli doontaa toobadaas. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inaan mar walba dembiga naga dhacayo oo noo dembi dhaafo. Anakana mar walba aan isku dayno inaynu dembiga markaynu ku dhacno aan Allah subxaanahu wa tacaala u laabano. Laba mid oo kaliya weeyaan. Haddii aan Ilaah subxaanahu wa tacaala u laabano, dembigeena waa noola dhaafayaa. haddaan Ilaah subxaanahu wa tacaala u laabano, shaydaan waa ka guulaysanaynaa. Shaydaan waxaan ku gubi karnaa oo aan iskaga celi karnaa oo aan uga adkaa karnaa waa marka aan toobad la nimaano. Mar hadduu qalbigeenna ka murugoonayo, waxaa ku jiro iimaan weli. Taasina waa bishaaro. Waxaana nologa baahan yahay inaan iimaankeena sii weyneyno inta uu la eg yahay hadeertaan inaynu kasii laba jibaarno. Iimaanka marna hoos ayuu dhacaa, marna kor ayuu kacaa. Waana wax anugu xiran. Waxaana laga baahan yahay inaynu salaadaha laazimno. Waxaana laga baahan yahay inaan quraanka laazimno. Waxaana laga baahan yahay inaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala xusitaankiisa badino. Waxyaalahaas oo dhan iimaanka kor ay u qaadaan. Halka dembiga, macaasida, beenta, xanta, wax walbo niyadaada kusoo dhacayo waxay hoos u dhigaan iimaanka. Waxaana nalaga baahan yahay si aan iimaankeena kor ugu qaadno inaynu ku dadaalno waxyaalahaas Ilaahay raali u ka yahay. Ilaahay ayaan taas weydiisanaynaa inuu nagu hagaajiyo waxa wanaagsan, waxa xunna oo Ilaahay naga leexiyo. Haddii muuqaalkan maanta uu kusoo gaaray, like saar muuqaalka kuna soo biir miiraad. Waa halka aan kaga hadalno iimaanka iyo nolosha. Waana madal aan wada leenahay, nafteeda aan ku bedelayo, sidoo kale aad naftaadan ku bedeli kartid. Waxaynu wada galaynaa safar nolosheena ah si aan nolosha u wada guuleysano.